kooxda kubadda cagta Banaadir Sports Club ayaa u soo bandhigtay saxaafadda goolhayaheeda cusub Siciid Aweys Yemani. Banaadir Sports Club habeenkii Arbacada aan soo dhaafnay waxay xaflad ku qabsatay mid ka mid ah hoteelada ku yaala magaalada Muqdisho iyadoo ugu dabaaldegaysa ku guuleysiga koobka Jarnaal Daawud. goobta xafladda waxaa ku sugnaa mas'uuliyiin kala duwan ee dowladda federaalka Soomaaliya, xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed, maamulka kooxda Banaadir, xidigaha xulka qaranka Soomaaliya sanadkan matali doona taageerayaasha kooxda iyo mas'uuliyiin kale oo kala duwan. Goolhaye Siciid ayaa waayo fiican ku soo qaatay naadiga Dekedda isagoo kula guuleystay horyaalka Soomaaliya Premier League. Siciid Yemani ayaa loo dhiibay lambarka 30aad ee kooxda ka u siitay goolhaye Mane, balse wuxuu gacanta ka saaray goolhayaha dhabaangalka ee kooxda Banaadir Sports Club Siciid Yemani kaas oo horyaalka Soomaaliya qayb ka noqon doona safka macallin Xuseen Mbalango oo ah hogaamiyaha naadiga Banaadir Sports Club. kadib markii ay soo bandhigeen maamulka kooxda Banaadir Sports Club, goolhaye Siciid wuxuu la hadlay saxaafadda isagoo ka hadlay dareenkiisa iyo waxyaabaha uu ku soo kordhi karo naadiga. magacayga waa Siciid Aweys Cali oo ku faraxsanahay ku soo biiritaanka naadiga Banaadir Sports Club. mar walba oo ku hami jiray in fanaandooda gashto, alxamdulillah adana maanta waa ku guuleystay in fanaandooda gashto. insha Allah waxa isku dayaa in baahidooda uu dhanka goolhayeednimada uu qabeen in u buuxi doono insha Allah la guuleysan doono insha Allah horyaal. والله فرين أهان واحد أدرى إن مر والبو صان يسيك في عن إن نوت تاجران كوح ذو إن قرب استاجان أنا كنا إن شاء الله كوبكو وكنا دونا.